ay soo boqday in weliba niyaddeeda wanaag keliya ay ku xumaato oo aanan weli aan 20 sano aanan arkin wax noocaasi soo boqdo magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ku nool dad danyar ah oo u baahan in gargaar degdeg ah la soo gaaro maadaama bil barakeysan ee Ramadaan lagu guda jiro isla markaana dadka dhibaatada haysata loo baahan yahay in gacan bini aadanimo loo fidiyo Cabdullaahi Gane waa aabe ku dhiban xaafadda Wajeer degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir idaacadda maanta iyo TV-ga maanta oo ay isla markaana kaashanayaan qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda maanta oo isla markaana barnaamij lagu magac daray anfuri walaalkaaga miskiinka lacag ugu aruurisay ay ugu deeqday Cabdullaahi Gane oo dhibano ku ah magaalada Muqdisho Cabdullaahi waxa dhabarka dambe jirkiisa kaga dhacday xabad oo isla markaana sababtay in ku dhawaad 20 sano oo naafo ku ahaado xabad dhabarka dambe kaga dhacday ugu horreyn waxa ka warbixiyay Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ay ilmaadiri yihiin Cabdullaahi Gane oo ku dhawaad 20 sano dhibano ku ah magaalada Muqdisho Cabdullaahi Gane waxaan la tacaalaynaa 19 sano ama ugu yaraan 20 sano 19 sano wala halkiis hadda waa sida adinku aad ku aragtaan Cabdullaahi Gane isbitaal iyo waxyaabo badan oo hadda wadankan isbitaalka ugu sareeyay la geeyo horta kaysanayo ahay waxa diidana waxay ahayd tabarta diiday hadii ama hay'ado jiraan waa gudaha wadanka moogta wixii uu sareeyso la geeyay isbitaalkaas kaysanayo hadii ama hay'ado jiraan ama ay bahalkii dawladda jirtana wax u qabto waliba soo gaarin Cabdullaahi Gane madaxa u baahanaa maadaama ay dad islaam ah hantiilayaal caalamka ay jiraan cid allaale cid wax ku saacidi kartaa ninkaas miskiinka ah muslimka ah liita ama islaamnimo wax u saacidaysa ama bini aadanimo wax u saacidaysa waxaan ka codsanaynaa hoygiisa waa aragtaan muuqaalkiisa waa aragtaan nabrihiisa waa aragtaan cid allaale cid wax ku saacidaysa oo islaam oo ama bini aadanimo wax u saacida ama islaamnimo wax u saacidaysa waxaan leenahay Cabdullaahi waa ninkaas aad u liita cid kasta wax ku saacidaysana khayr Allah siiyaan leenahay waxaan ka codsanaynaa marka dadka muslimiinta inay aad ninkaas si islaamnimo ku jirto ay u garab qabtaan maadaama uu hadii lagu nin dhaawac oo liito haddana iska liita haddana nin cid ku soo baxda ama magaalada Muqdisho cid haddana hadii ku rubahalka isbitaalada u sareeyay kaysanay naqdeen waqti ma hayna hadda isbitaal kale oo ka sareeyo ka caalamsan sidaas darteed waxaan Cabdullaahi leenahay hadii loo heli karo qof kasta islaamay u heli karta in ama dibadda wax loogu qabto ama dalka wax loogu qabto heli karta fal tafadalan leenahay aan islaam hooliito miskiin u baahan garab qabasho u baahan agaasimaha idaacadda maanta ee magaalada Muqdisho Maxamed Cabdullaahi Cumar Weere ayaana ku doonsiiyay deeq lacageed oo kaga timid dhageystayaasha idaacadda maanta isla markaana loogu magac daray barnaamij anfuri walaalkaaga miskiinka bismillaah dhowrkii maalin ugu dambeysay idaacadda maanta ee magaalada Muqdisho oo kaashanaysa walaal muslixiin ah oo dalka iyo dibadda joogo waxay booqanaysay dad dhulyaal ah oo jooga degmooyinka gobolka Banaadir maanta waxaa la qadaray inaan degmada Kaaraan xaafadda Wajeer ugu tagno Cabdullaahi Gane oo in ka badan 18 sano nolol sheegay inuu dhulyaal yahay rasaas qaybta dambe ee jirkiisa ku dhacday ayaa sababtay inuu hoygan aragteen ay daawateen ayuu had degan yahay oo waliba uu kira kula jira waxa uu dalbanaya waxyaabo ugu muhiimsan waxa kamid ah caafimaad dibadda ah taasi uu rajo ka qabo in uu weeraan nolol uu heli karo inta badan isbitaalada ku yaala gobolka Banaadir waa la geeyay sida ehelku ay noo sheegeen Cabdullaahi xaaladiisa sheekeen u baano kaliya waxa ka hadli kara amba sheegi kara qoftii timaado aragta ama markaasi asiga la hadashay la xiriirto inaga oo qaadanayna waajibka naga saaran ee dadnimo waxa maanta go'aansanay inaan lacag yar aan gaarsiino aan uga qidmeynay barnaamijka baxaraadiyaha oo la yiraahdo afuri walaalka oo walaalo Soomaaliyeed ay wax ku bixiyaan marka laba habeen ama saddex habeen ma bixi doona afurkiisa insha Allah laakiin Cabdullaahi wuxuu u baahan yahay garabkeena ayuu u baahan yahay inagoo isku dubanaya wax u qaban karno insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka soo jawaabi doontaan baaqiisa haddii ay barnaamij ka ahaado waxaan bixi doonaa oo aan sii doonaa lacag kala duwan oo mid barnaamijka aan uga qidmeynay afuri walaalka midna ay tahay lacag ay soo dhibeen walaalo Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa jooga oo markaasi
aan kaga soo qaadno qayb maadaama dad kala duwan ay ugu talagaleen marka waxaan jeclahay inaan Cabdullaahi laba mar kale guddoonsiyo lacagta maadaama laba waji ay kala tahay Cabdullaahi iga guddoontan waa lacag $100 ah waxaan kaga soo qidmeeyay barnaamij leeraho afur walaalka idaacada ka baxo $100 waaye tan waa konton tan waa 10 tan waa 20 tan waa 20 tanna waa $30 waa 20 iyo 10 walaal Soomaaliyeed oo Ingiriiska jooga ayaa soo dhiibay oo lacag in loo sadaqeeyo ugu talagal ayaa ayadana kaaga soo jiray Cabdullaahi Ganay ayaana ka mahad celiyay isla markaana sheegay in loo baahan yahay in sidaani oo kale gurmad la soo fidiyo umada dhibaataysan waxaan u jeedahay walaalay muslimiinta ah ee soo boqday in waliba niyadiisa wana kali ay ku xumaato waana wali aan 20 sano aan arkin wax noocaas soo boqo 5 43 85 Cabdullaahi Ganay ayaa marka kan u baahan gargaar caafimaad si loogu daweebo dalka dibadiisa wuxuuna codsaday in ruux kasta oo bini'aadan ma wax u qaban kara in uu la soo gaaro gargaar bini'aadanimo Umar Cabdullaahi Xasan Maanta TV Muqdisho